26 bishii hore ee Juun ayay ku beegneed markii magaalada Boorama xabsiga loo taxaabay 35 hablood oo la soo qabqabtay iyagoo xiran calanka buluuga ee Soomaaliya una dabaaldegaya munaasabadda 26 Juun. Haddaba waxaa maanta soo gaaray magaalada Boorama 35 kaasi hablood oo ku xidhnaa muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley oo la sii daayay kadib markii uu cafis u fidiyay madaxweynaha Soomaaliland. Waxaana munaasabad kooban oo lagu soo dhaweynayay gabdhahaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro. Waalidiinta dhalay gabdhahaasi iyo waliba qaar kamida gabdhihii la sii daayay waxayna yidhaahdeen balnaanadu celinayna madaxweynaha naga aqbalay ergadii aan ugu tagnay in hablahaas ay nala iidaan oo noo soo daayay insha Allah inabadii waanu ka gaarsiin weynay waadun isla habsaamaan nidhi dabeedna waxaan horta habluhu soo qaata waanu keenay hablihii oo 35 way noo dhayiin khayr badan baanu idin rajaynaynaa waalidiinta kulli waa dhibantiin oo markay wax dhacaan cidda dhibtu ku dhacdaa cidda samaysan maaha waa waalidka waanu idinka taxseenaynaa raalli ka ahaadaan idin leenahay wixii dhacay hablaha iyagana waxaanu leenahay aanu dhalay iyo qaar nala dhashayba waa aragtaan sida xaal yahay bal mar dambe yaan layna qaldin insha Allah ilaahay baa mahad leh inoo suuro geliyay inaan maanta halkan isugu nimaadno inagoo ku faraxsan caruurta la soo daayay waxa kale oo mahad ballaaran u jeedinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii muxuu ahaayay maanta suuro geliyay in hablahaasi la ciidaan waalidkood waalidkii dulqaadka iyo samirka yeeshay awlaadoodii runtii u samreeyay inta ay xidhnaayeen waan u mahad celinaynaa madaxda gobolka oo runtii si fiican hawshan noogala shaqeysay ka nagaad ahaan aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay awlaadu maanta wax badan bay soo arkeen waa markii ugu horeysay tolay gabdhihii ugu badnaa loo soo xidho falcaynkaasa laakiin maanta waaya aragnimo badan bay sameeyeen kulankayagii aanu wada hadalnay waxay ballan qaadeen inay calanka u sidi doonaan nabadda Boorame inay iyagu ka shaqayn doonaan falalka caynkaasa cidii ku dhaqmaysa si fiican baanu u wada hadalnay waanooyin badan baanu kala qaadanay waxaanu rajaynaynaa waalidka inaanay dib dambaysa insha Allah uga murugaysiin doonin waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa hablihii baradii la noo soo daayay maradii la noo keenay oo dadkayga noo keenan dawladeeda noo keentay askartayda noo keentay calankayga narsanayno ilaahay baan ku mahadinaa marka waxa weeyaan waad mahadsantiin madaxweynaha haday tahay mudana kale haday tahay waad wada mahadsantiin maanta waxaanu raali ku nahay dawladda iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda dhamaantood waan u mahad celinaynaa maadaama ay ubadkii waliba siibi gabdhihii cawrada ahaa ay maanta hooyooyinkood la ciidayaan dhamaanintii daadigu falkayagan ka qayb qaadatay in aan dambi dhaafna loo weydiiyo waan idinka mahad celinayaa hooyo iyo waalidna waxaan idin leeyahay raali naga ahaada dhammaantiin dood ku mahadsantiin waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan gudida dadka dhammaan sharafta leh aad iyo aad uga qayb galay inaan maanta ka soo baxno xabsigan ku xidhnayn aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hay'adda nagaad gaar ahaan maama Nafiisa oo aad iyo aad aan ugu mahad celinay sababtoo waxay noogu timid anagoo xuriyadeedii naga maqantay nagu soo booqatay ilaahay baan u mahad celinaynaa madaxweynaha Soomaaliland baan u mahad celinaynaa hay'adda nagaad baan u mahad celinaynaa maanta noogu soo celisay dhibtiina saareed naga dulqaaday sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi Bade oo kamid ahaa shakhsiyaadka sida weyn uga qayb qaatay in la sii daayo gabdhahaasi waxa uu yiri waxaan mahad u celinayaa Ilaahay oo Subxaanahu wa Ta'aala inagu guuleeyay in dhalinyarteennii aynu maanta halkan aynu farxadda ciidda u soo celino waalidkoodii waxa kale oo mahad gaar ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ruuxaantii gartay in dhalinyartaasi dhammaantood ay la ciidaan waalidkooda ay la farxaan hablihii maanta anaga codsanay in si dhaqso ah loo soo daayo oo la soo raaciyo in lamaduna way ku jiraan suldaano iyaguna bay daba socdaan iidu markay baxdo iyaguna insha Allah Ta'ala la soo diilay amarkaan oo baxay oo codsi dambe ma baahnay inaynu amarkaasi u baxay way fog yihiin nidaamka waafajintiisiba ayaa waqti u baahatay marka waa la keenayaa waxaan aad iyo aad rabaa halkan saddex qodob baan rabaa inaan ka sheego mid waa iga waano waxaan dhalinyarada leh hablaha iyo namadaba waqtigiinu uma qalmo in cid kale isticmaasho mustaqbalkiinu uma qalmo in cid kale ku shaqaysato tabartii iyo tacabkii waalidkiinu ma gayo in maskaxdiina la bedelo oo laga hor keeno waalidkaagii iyo qarankaagii iyo calankaagii waxay cay ku tahay waxbarashadaada
waxa ay ku tahay garaadkaaga waxay dhibaato ku noqonaysaa waalidkaaga ku dadaalayay ee dibadda u wareegaya inuu ku soo saaro ayay ku tahay culays iyo niyad jab. Cabshakuur Maxmed Ali 5TV Boorama.